nidaamyada casriga ah ee difaaca cirka ayaa bedelay xuduudaha iyo hawada Iran iyaga oo ka dhigay gaashaan aan si fudud loo jabin karin. ilaalada kacaanka ayaa gantaaladooda wax burburiya ka soo saaray dhulka hoostiisa iyagoo si toos ah ugu wajahay bartilmaameedyo ku yaala gudaha Tel Aviv, taas oo Iran ka wareejisay istaraatiijiyadeedii difaaca una bedeshay weerar toos ah. in ka badan 2,000 oo gantaal ayaa hal maalin gudaheed lagu tuuri karaa Israa'iil, halka astaanta awoodda military ee Mareykanka maraakiibta xambaara diyaaradaha sida Abraham Lincoln iyo Eisenhower ay galayaan halis toos ah. Mareykanku wali wuxuu ururinayaa ciidamadiisa si ugu diyaar garoobo dagaal, halka Iran ay doonayso in ay jabiso awoodda Mareykanka iyadoo dunidu arkayso. Trump iyo Netanyahu uma muuqdaan kuwa si buuxda u xisaabinaya cawaaqibka, halka Iran ay dirayso fariin cad oo aan la dhayalsan karin. hadalka qarsoon ee Tehran wuxuu xambaarsan yahay dhambaal ah aniga iyo cadowgaygaba aan halaagsanno, taas oo ka dhigaysa isticmaalka hubka nukliyeerka mid miiska saaran. haddaba maxay Iran u doonaysaa inay dagaalka bilowdo? maxayse Israa'iil u baqaysaa? maxaase Shiinuhu u soo kordhiyay taageerada Tehran? su'aalahan iyo kuwa kale ayaan kaga jawaabaynaa tabinteennan Tafaftir Media ee soo dhawaada. iyadoo ay cirka isku sii shareerayso xiisadda Iran iyo Mareykanka ayay falanqeynada muujinayaan cabsi laga qabo weerar Iran ay ku qaado Israa'iil, kaas oo loo adeegsan karo kumanaan gantaalo ballistig ah. arrinta ayaa imanaysa kadib markii Iran ay dib u dhistay keedkeedii gantaalada, inkasta oo weeraro hore loogu qaaday. isla mar ahaantaas Shiinuhu wuxuu xoojinayaa difaaca Tehran isaga oo keenay nidaamyo casri ah oo hawada ka dhigaya shabakad daminna dhimasho leh. Iran waxay ku hanjabaysaa inay biyo ku shubi karto maraakiibta Mareykanka ee ku sugan gacanka, isla markaana ay beegsan karto saldhigyo fog sida jasiiradda Diego Garcia. Tehran waxay u aragtaa weerar kasta oo Mareykan iyo Israa'iil ah inuu yahay dagaal istaraatiijiyadeed oo lagu qaaday jiritaankeeda, taas oo dhalinaysa su'aalo ku saabsan suurtagalnimada kor u kaca khatarta adeegsiga nukliyeerka haddii qorshayaasha hordhaca ah guuldareystaan. war-saxaafadeedyo iyo hadallo qarsoon oo ka soo baxay mas'uuliyiin Iiraaniyiin ah ayaa muujinaya niyadda ah in Iran ay door bidayso bilowga dagaalka halkii ay sugi lahayd. Israa'iil waxay hadda u aragtaa Iran awood military oo si buuxda u diyaarsan, kana awood badan intii hore loo saadaaliyay. maalinta koowaad oo kaliya Iran waxay tuuri karaan ilaa 2,000 oo gantaalo ballistig ah. waxay dib u soo saartay gantaalo ka badan kuwii hore, taasoo muujinaysa warshad military oo heer sare ah kana baxsan qiyaasihii la sameynayay. gantaaladan saxnaanta sare leh ayaa hore waxa u beegsadeen bartilmaameedyo istaraatiiji ah sida xarumaha taliska ciidamada Israa'iil. weeraro noocaas ah ayaana beegsan kara garoomo diyaaradeed, dekado iyo xarumo nukliyeer, taas oo curyaamin karta jawaabta Israa'iil, isla markaana keeni karta khasaare bani'aadamnimo oo lagu qadari karo ilaa 4,000 oo qof dhimashadood. inkasta oo weeraradii hore aysan gaarin heerkan, haddana falanqeeyayaasha ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal nafsi ah uu socdo. istaraatiijiyadda Iran waxay ku dhisan tahay weerarka koobaad yeelo, iyada oo gantaalada sida Fatah 110 iyo Dulfiqaar ay gaari karaan gudaha Tel Aviv. haddii ay gantaaladan adeegsadaan Xisbullah ama Xuutiyiinta iyaga oo wata madaxyo dagaal oo 500 oo kilograama kuna shaqeeya nidaamka hagiska ee GPS-ka iyo INS, waxa ay noqonayaan kuwa ka baxsan gantaaladii Israa'iil ee dagaaladii hore, isla markaana caqabad weyn waxay ku noqon doonaan nidaamka difaaca birta ah ee Israa'iil. tiro badan oo gantaalo ah ayaa ka gudbi kara difaaca Israa'iil. arrintan ayaana si cad waxay uga muuqataa kulamada golaha ammaanka Israa'iil ay yeesheen, halkaas oo taladu ahayd inaan si toos ah loo galin weerarka Mareykanka balse la qaato difaac sugitaana. Tehran waxay sidoo kale tixgelinaysaa weeraro hordhac ah oo badeed iyaga oo beegsanaya maraakiibta Mareykanka ee gacanka Carabta. tani waxay ka dhalatay casharo laga bartay weeraradii Xuutiyiinta ee sanadkii hore, kuwaas oo muujiyay in marinada muhiimka ah sida Bab al-Mandab la xanibi karo. Iran waxay adeegsan kartaa gantaalo ballistig ah oo lid ku ah maraakiibta kuna xiran nidaamyo raadeer xeebeed, waxaana sidoo kale ay ku tiirsanaanaysaa miinooyinka caaqilka ah iyo quusayaal fudud oo lagu beeri karo biyaha gacanka. gantaalada Nuur iyo Qadar ee kruuska ah ayaa u gooyn kara raadarada, taas oo nidaamyada Mareykanka gelinaysa caqabad culus. markii Shiinuhu si toos ah u soo galay khadka, Iran waxay heshay nidaamyo difaac cirka oo heer sare ah, kuwaas oo hawadeeda ka dhigay gaashaan adag. raadaro ayaa daboolaya 360 digrii, isla markaana waxay la socon karaan boqolaal bartilmaameed.
nidaamyada HQ-22 iyo HQ-26 ayaa awood u leh inay qabtaan gantaalada ballistiga iyo diyaaradaha iyaga oo sameynaya difaac dhowr lakab ah oo carqaladeynaya weerarada degdega ah ee Mareykanku qaadi karo. haddii weerarka hordhac ah ee Iran guuldareysto waxaa dhici karta kor u kaca dagaal halis ah kaas oo keeni kara weeraro culus oo lagu beegsado xarumaha nuclear-ka Iran iyada oo la adeegsan karo diyaaradaha F-35 iyo B-50 oo wata hubka gala dhulka hoostiisa. tani waxay Tehran ku riixi kartaa ikhtiyaarka adeegsiga nuclear-ka maadaama ay awood u leedahay inay uranium-ka gaarsiiso 60% heer ku dhow mid military taas oo kicin karta tartan nuclear oo gobolka ka dhaca. Shiinaha iyo Iran waxay u midoobayaan ka hortagga liididda Mareykanka. Israa'iilna waxay sugaysaa fursad ay ku wiiqdo nidaamka Tehran. weerarka hordhaca ah ee Iran waa seef laba afle ah. waa ka koobaad waa ka hortagga duulaan halka midka labaadna uu yahay horinta dabbaab iyo dhammaan dhinacyada. haddaba ma awoodda Iran ayaa hirgeli doonta oo qorshahan fulin doonta mise xaqiiqada sidaas way ka duwan tahay? fikirkaaga nagula wadaag qaybta faallooyinka inta aan dib u kulmayno. waa Abubakar Maxamed oo idin leh nabad iyo warsan.